دكتور حبيب وسمفله gacanta ku haya in ka badan 700 oo ruux oo isugu jira rag iyo dumar kuwaasi oo maskaxda ka xanuunsanaya دكتور حبيب الله caafiyo maanta isaga waa uu xanuunsan yahay دكتور حبيب isaga oo xanuunsan ayaa maanta waxa uu halkan u joogaa in uu deeq gudoomo dad Soomaaliyeed oo markaasi ay halkan keenay deeq ay u soo dhiibeen dad u dhashay wadanka Switzerland oo cadaan ah waxa halkan soo gaarsiiyay qurbo joog iyo qorax joog way soo gaarsiiyeen dad ka socday دكتور bal ka hor horta marka hore xaaladaada caafimaad maanta ka hor xaaladayda aad u fiican xogaa indhaha marka imbalance marmar dhanka bixida aan u leecayaa cadaadan joogay isbitaalka cadaado waxaa la soo toosay markan qof fiiriyo 5-6 uu noqonay sidaasaan ku imid haddana daawa ii socota maasha allah waa fiicanahay alxamdulilah ilaah ku caafiyo dhammaanteen waxaan leenahay doctor xabeeb allah caafiyo mustaf gobdoon iyo siciid nabadoon oo wakiil ka ahaa deeqdan ayaa doctor xabeeb ku wareejiyay waxaana ay ka timid samafalayaal u dhashay dalka Switzerland oo soo marsiiyay qurbo joog Soomaaliyeed oo ku nool wadankaasi waxaa loogu talagalay dadka dhimirka la ee ku jira xarunta doctor xabeeb ugu horeen waxaa hadalka qaatay mustaf gobdoon oo ka mid ah qurbo joogta Switzerland iyo siciid nabadoon kuwaasi oo sheegay in maanta Amana Charity ay soo gaarsiisay deeqdan xarunta doctor xabeeb waxaan halkan u nimid maanta aniga saaxiibkay walaalkay siciid nabadoon inaan taageero aan badnayn aan gaarsiino xaruntan weyn maadaama ay qalbiyadeena soo jiidatay wax qabadkay u qabatay bulshada Soomaaliyeed marka waxaan leenahay aad iyo aad ay u mahadsantihiin garashada aad garateen bulshadeena oo dhowr 30 sano dhibaatooyin xagga dhimirka ah la kaca ku faayay in loo sameeyo xarumaha noocaan ah oo iminka ay sii badanaydo marka bulshada Soomaaliyeed iyo dawladdeena federaalka waxaan u baaqaynaa in xaruntan ilgooni lagu sameeyo ilgooni lagu eego si loo taageeri lahay marka aad baan u mahadsantihiin anagoo ka wakiil hay'adda Amana Charity waxaan ka imid dalka Switzerland iyo jaaliyadda Soomaalida Swisska ay halkaas degan baaqiina waa gaarsiin doonaa duco leeyahay waxaa sharaf weyn noo ah runtii maanta inaan goobjoog u nahay deeqdan raashinka iyo taakulaynta ay walaalaha Switzerland ay soo dhiibeen mustaf isagoo wakiil ka ah saaxiibkeen gobdoon oo Switzerland ka yimid laguna yaqaano taakulaynta bulshada muddo 20 sanana ku soo dhex jiray arrimahan samafalka ah runtii maanta nasiib waxaan u yeelanay inaan goobjoog u ahaano taakulayntan walaalaha ogaada walaalaha deeqdan soo dhiibtay Soomaali ma ahan waa dad ajnabiya oo gartay in ay xarunta xabeeb ay deeqdan soo gaarsiiyaan marka waxa sharaf weyn noo ah walaalkeen Umar Cabdiraxmaan Cali Cawaale oo ay dadka u garan og yihiin doctor xabeeb runtii waxa uu istaahilaa garab istaag intaan ka badan anigoo ku hadlaya magaca bulshada baraaruga bulshada Banaadir oo ah hay'ad ka shaqeysa arrimaha gobolka Banaadir runtii waxa sharaf weyn noo ah maanta inaan goobjoog u ahaano deeqdan ay hay'adda Amana ay soo gaarsiisay waxaan rajaynayaa bulshada Soomaaliyeed runtii waxaan ku dhiirigelinayaa walaalkeen deeqdan yar uu soo dhiibay laakiin mid ka badan waxaan aaminsanahay in ay dadka reer Muqdisho iyo dadka Soomaalida ah inay isaga filnaan karaan oo ayaga ihsaankan sameyn karaan mid ka mid ah mas'uuliyiinta isbitaalka iyo doctor xabeeb ayaa ka mahadceliyay deeqdan waxaa ka gudoonnay fadliga maalinta jimcaha iyo adeegii ay noo soo keeneen hay'adda Amana Foundation isbitaalka wax weyn ayay ka taraysaa walaalaha Amana Charity waxaan leeyahay I would like to thank you walaalayaal sida maanta aad arkaysaan maanta oo jimcaha garabkayga bidixda waxaa taagan gudoomiyaha Amana Charity dhinaca midigtaygana waxaa taagan gudoomiyaha baraarug bulsho Banaadir PPP walaalkan wuxuuna soo gaarsiiyey deeq buuna soo gaarsiiyey deeqdaas oo aad indhihiinna ku arkaysaan 700 oo qof ayaa maanta
halkan ku quracanaysa ka qadaynaysa oo isugu jiro rag iyo dumar aad iyo aad ayaad umahadsantihiin sidaad noo xusuusteen mudane goobtoon mahadsanid ما سنة mudane nabadon saciid zakariya axmed muuse t v-ga shabeelle muqdisho